odayaal halkaana ma soo gaartay fatahaadda webiga xerada barakacayaasha waaba ogahay inay soo gaareen daadadka biyaha webiga oo uu halkaan maasheeyey ilaan hadda soo jabshashadii webiga uu soo jabsaday waxaa laga joogaa muddo 1 usbuuc ah waba haddii ha fatahma xoog biyo ku dareer iyo kiirimta meelan iimaylka dheerbi deeri kora haddii webigu sa fatahma waana muuqati ilaan meelu sideeri fatahaadii webiga warsame waa sax hadalka suldaan webigu waa uu soo gaaray halkan fatahaadiisa fiiri qoyaankii biyaha ayaa weli sii muuqda iyadoo fatahaadii webiga laga joogo muddo 1 usbuuc aniga kolley warsame ahaan waa la iga badiyaa webi iyo fatahaadiis iyo xaaladihiisa wax aan aqoonna ilaahay baa idilahaya waa aqaan anigu ma oran karo warsamow dadka xoolo dhaqatada ah badi webiyada ma garanayaan waxa ugu aqoon roon dadka beeralayda ah marka kuma khaldanid haddii aadan aqoonin meeshaan gaariga noo joojiya waan joognaaya waan meeshaan u soconnay ee biyaha webiga ay ku soo jabsadeen walle ilaa waaban nimidba xeradii durba dhaqsa ayaan ku nimid haye maasha allah oo waxaaba joogoo naga soo horreeyey kabtan bilaal walle ciidan waa ciidan meelu doonaba ha jooga ciidanku waa kuwa had iyo goor heegan u ah howlaha bulshadooda inay caawiyaan oo ay gargaar u fidiyaan kabtan bilaal barqa wanaagsan adeer barqa wanaagsan oday warsamow waxaan filayaa inaad soo booqateen fatahaadda webiga iyo dhibaatada ka soo gaartay deegaanka ay deggan yihiin dadka barakacayaasha ah waad asiibtay kabtan bilaalow waa sida aad sheegtay kabtan bilaal waxaan u nimid inaan ogaanno arrimaha barakacayaasha iyo sida ay biyaha webiga wax u soo gaarsiiyeen maadaama aan nahay odayaashii iyo maamulkii deegaanka isku filan oo isla socda oo aan u kala maqnayn wallee waa hadal dow ah waana waajibka idinka saaran bulshadiina kabtan bilaal waa qasab dadkooda inay soo booqdaan hogaamiyaasha deegaanka isku filan waanu ku faraxsannaa haddiinu ina dagaalkii heryaalka bogtaadla waan aragnaa waxa halkan ka dhacay laakiin waa 2 cisho keliya way qalalayaan biyahani dhibaatadani waa mid baaxad weyn sharmaakow maaha mid la dhayalsan karo waxaana loo baahan yahay in la daraaseeyo oo laga tashado jawaahir iyo nasr soo dhowaada oo halkan idinkuna imaada waa dhownay warnimayow annagu meeshan ujeeddo ayaanu u nimid iskama aanan imaan horta taas ogaada adigaa ku wata sheekh cilmiyowe waa runtaa halkan waxaannu u nimid in aan qiimayno xaaladda fatahaadda halkan waxaa ka dhacay fatahaad weyn oo ay sababeen biyaha webiga soo jabsaday hadalkuna isma saarna marka taas waa inaan wada ogaanno oo qof walba maankiisa ku hayo waanu ognahay sax wey marka hore odayaasha deegaanka isku filan imaatinkooda halkan waxay ka turjumaysaa sida ay ugu diyaarka yihiin xalinta dhibaatooyinka xerada barakacayaasha ka soo gaaray fatahaadda webiga waan ogsoonahay in booqashadiinnu ay daaran tahay in si dhab ah aad uga war heshaan khasaaraha soo gaaray dadka iyo xerada barakacayaasha ahba dhibaatada soo wajahday aad bay u weyn tahay runtii alla ilaahay waa xaqiiqada dhabta ah weliba sida ay tahay oo ay wax u dhaceen kabtan bilaalow afka ilaahay kuma gooyo ka soco inaad wargal tahay anigu weligayba waan ogaa waxaan idiin sheegayaa in markii dhibaatadan fatahaadda webiga ay dhacday ay si xoog leh ugu soo gurmadeen ciidanka booliiska iyagoo aan u kala harin ayay muujiyeen dadaal adag waan garannay waadna ku mahadsan tahay kabtan bilaalow haye adigaa mudan sheekh cilmi haddana waajibkeena naga saaran bulshada aannu u shaqaynayno guud ahaan waan sii wadaynaa waad mahadsan tihiin iyadoo weliba aan ognahay inay waajibaadkeenna ka mid tahay ee bal noo wada hadalka waxaa kaloo jira in guuto ciidanka ah oo ka agdhowaa meesha iyo dadka deegaanka oo iskaashaday ay ciid ku hareereeyeen webiga jiinkiisa si aanay fatahaad kale mar kale u dhicin waa hawl aad iyo aad u wanaagsan waxa ay qabteen ciidanku waana mid taariikhda geli doonta hawshaas baaxadda weyn leh ee lagu badbaadinayay dadka deegaankeenna taa lama ilaawaan ayay noqon doontaa hawshiina ayaad qabsateen kabtan bilaalow waad mahadsan tahay sharmaarkow weli waxaan sii wadnaa dadaalada lagu hakinayo biyahaas soo fatahmaya inkastoo hadda shaqada ay dhammaystiran tahay gebi ahaanba oo hadda biyo inuu soo fataho webigu mar kale lagama cabsi qabo miya kabtan bilaalow hadda waxaa loo baahan yahay in laga hortago fatahaadaha kale ee laga yaabo inay yimaadaan roobab culus oo mustaqbalka imaan kara ayaa jira taasina waa mid aad muhiim noogu ah dadka iyo deegaankana
ay ku badbaadi karaan haddii kale way nagu soo noqnoqonayaan fatahaadaha biyaha webiga. nasra meeday nasra haa aabbo waa ikan waan joogaa. maandhay waxaan doonayaa inaad odayaasha u soo gudbisid halka uu marayo dadaalka lagu doonayo in dib loogu soo celiyo xerada bulshada barakacayaasha ah si ay noloshooda u sii wataan haddii ilaahay idmo. haa waan u baahannahay hadalkaas ee noo sheeg nasrobal. waxaan wada ogsoonnahay in markii webiga uu soo fatahay in dadka qaarkood si ku meel gaar ah loo dejiyey masjidka iyo iskuulka deegaanka oo ay ilaa hadda ku sugan yihiin. waan ognahay waa nala soconnaa. waxaa noo suura gashay inaan u helno raashiin aan badnayn oo ayna soo gaarsiisay hay-ad waddani ah oo ay koox dhallinyaro ah abaabuleen. qoys walba waxaan siinay 1 baako oo mushaari ah, kiilo bur iyo 3 saliid ah. hay-ad kale oo waddani ah ee gabdho abaabuleen ayaa sidoo kale nagu caawisay saliyaal, joodariyaal, sinsiyeeri iyo dhar, kuwaasi oo aan sidoo kale aan u wada qaybinay. arrin wanaagsan. wax fiican bay qabatay. waad ku mahadsantaa adeer. waa gartay nabad. waxaan weli u baahannahay inaan helno raashin dheeraad ah maadaama aysan intaas ay heleen aysan dhaafin karin 3 maalin. hay-ado kale ayaa xiriir la samaynaynaa si aan u helno gargaar dheeraad ah. ma isaas wey khayr bay ku dhammaanaysaa. khayr allah siiyo gabadha. waxaa sidoo kale jirta in wakiilka dowlad goboleedka uu arkay meesha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ee iskuulka iyo masjidka, wuxuuna sheegay in ayna suuragal ahayn inay halkaasi degnaadaan. anaka jawaahir ahaan wayba taageersanaa warbixinta nasre iyo sheegtay waana warbixin cid oo laka qanaca karo waay. wali kale ana siin sheegay in daadadkii webiga ususheeni in cudurkii daacan colooladka haayi usu sii fidahay waana aqabad kale wataasay. waan fahanay jawaahir adeer waa garanay. haa hadda mayba fadahayee in ana waalidiinta say wacyigeliyo oona kala shaqeeya habdhaqameedka nadaafadda si cudurkun lanka horseeda oona cudurkun u socon fidna. waa maxay haddaba qorshaha fog maadaama iskuulka iyo masjidku aanay suurtagal ahayn in ay sii degganaadaan barakacayaashu? bulshadan weli suuragal uma aha inay ku laabtaan tuuladoodii, waayo weli colaado ayaa ka jira halkaasi. taas ayaa sabab u ah halkan inay sii degnaadaan ilaa isbeddel uu ka imaanayo. akhyaare waxaan idiin sheegayaa in meel aan fogayn loo aqoonsaday oo loo qoondeeyey in laga dhiso xero cusub oo dadka barakacay ay degaan, laakiin qalabkii loo baahnaa ayaan welina soo gaarin. taasina way jirtaa qorshaha ku darsada akhyaare. waxaan idin sheegayaa inaan hawshan wax ka qaban doono weliba si degdeg ah. waa hadal aad u wanaagsan nasro. sidee wax uga qabanaysaan bal noo faahfaahi maandhay. waxaan idin xaqiijinayaa inaan la xiriiri doono dawladda, waxaana isku dayayaa inaan dedejiyo hawshan sidii aan ugu soo afjari lahaa sida uu dhaqsiyaha badan. waan idinkaga mahad celinayaa dhammaantiin kabtan bilaal, nasro, jawaahir, dadaalkiinna hufan iyo waxqabadkiinna muuqda. anigana allaylehe sidoo kale dhammaantiin waxaan idinkaga mahad celinayaa waxqabadkiinna iyo shaqada aad qabateen oo ah mid wax ku ool ah. aad baan idinkugu mahad celinayaa. waxaan idinka codsanayaa weliba inaan kulan kale isugu imaanno si aan u derdergelinno dhammaystirka howlaha noo yaalla. taasaa idinka codsanaya. tahliil dhinacanna soo marsii masaajidka dhankaas oo dhan waa la degan yahay. dadka barakacayaasha ayaa degan. waan u jeedaa niyahow, waan arkaa in weli dadka ay ku sugeen masaajidka. roobabka ka da'ay isku filan iyo nawaaxigeeda dhibaatooyin ayay gaarsiiyeen dadkii barakacayaasha ahaa iyo deegaanadoodii. ma garanaya xalka siduu noqon doono. warniyo waa runtaa, wallaahi waa wax jira kowdhe. dhibaatada dadka keliya ma ahane annaga xitaa wayna saamaysay, waayo kalluumaysigeeni waa uu hakaday roob dartood. nakeen tahliilow dhinacan ayaan aadaynaaye. waa yahay waxaan rajaynayaa niyahow in mar kale roob uu di'i doono dhowaan. saaxib nakeen rag waa shaahi waa soo casriyeynaaye. waa diyaar saaxiibu qofkaas masaajidka ka soo baxaya soo nasra maaha diiriyow. wallahi qof walba qofkiisa dadka uu ka garanaya. cajiib. niyo maxaa ula jeedaa hadalkaas? laakiin saaxiiba waxaa fajac ila noqotay
sida aad dhaqso u soo qabatay nasro. weligadaa ciyaartan iyo waa arkay adiga ujeedaay waan idin salaami tahliil iyo diiriye see tihiin xaalkiina ka warama waa idinka isla socotaane waan kaa qaadnay nasro aadna waan u wanaagsannahay waan kaa qaadnay nasro hadda ayaan ka soo baxay masjidka maasha allah nasro waa ku arkaynay markaad albaabka ka soo baxaysay annaga xitaa hadda ayaan ka soo baxnay masaajidka maasha allah gabar aad ugu wanaagsan salaada ayaa tahay allah kuugu wado nasroy waxaan ku weydiinayaa masaajidka ma ka heshay meel aad ku tukato xaaladdu waan dareemi karaa anigu inay aad ciriir u tahay haa tahliil waan ka helay maxaad ii weydiisay su'aashaas maya nasroy wax kale kuma weydin kowleh laakiin waxaan arkayay masaajidka inay yaalaan joodarayaal badan sidaa ayaan kuu weydiiyey in aad heshay meel aad ku tukato wax kale ma ahayn waayo fatahaadihii dadkii ka soo barakacay aad bay masaajidka soo buuxdhaafiyeen welina meel looma helin soo waan gartay hadda laakiin waan helay meel aan ku tukado ciriiri ayaa iska jira laakiin waa laga baxayaa xal kale ma jiro sidaan filayo run ahaantii arrintan waa arrin culeyskeeda leh waa run culeyska jira waxaa keenaya dhibaatada timaada hadda waxaan doonayaa inaan hogaamiyayaasha bulshada kala shaqeeyo sidii xal loogu heli lahaa dadka barakacayaasha ee halkan ku sugan waxaan doonayaa inaan dardargeliyo arrintan waaba war wanaagsan yaa heli kara nasroy xal in la helo umuurtani waa muhiim nasro waa sax diiriye laakiin arrintaani ma aha wax sahlan waa mid adag balse waa lagu qasban yahay in xal loo helo si kastaba ha ahaatee waa fahamnay nasro si kastaba ha ahaatee ma aha wax laga aamusi karo oo gacmaha laga laaban karo waa howl annaga inoo taalo haddaanu nahay reer isku filan waa runtaa nasroy waa runtaa waana in aan la dhayalsan arrintan barakacayaasha ee masaajidka hooyga looga dhigay oo xal loo raadiyaa sidii meel kale loogu geen lahaa nasroy madaxa meel ka korayso oo la salaaxo ma laha sidaa daraaddeed adiga ayaa nooga fara dhudhuuban howlahan ee bal sidii xal loogu heli lahaa ku dadaal nasro waan ku salaamay walaal bal caafimaadka ka waran xaaladaha halkay marayaan maxaa iga dambeeyey waan kaa qaaday colaad xaaladda ka waran bal nasroy maxaa cusub baryahan ismaynan arag waa la kala mashquulay colaad haye nasro keliya ayaad salaantay waa sidee xaalka nabad soo ma jirto war maya akhyaari raalli ahaada idinma arkaynin runtii nasra ayaa dhaqsaba indhahayga ay qabteen nasra haye bal ii waran caafimaad ka war nasra see tahay waa la fiican yahay colaad ii waran adi xaaladahaaga colaadow waaba isdhegatirayaa ka waran nasra cadii haye bal arrimahan xal mu yeesha bal iga waran waayahan adoo aad ugu mashquulsan ayaan ogaa maxaa kaaga hagaagay walaalow horta howshaan mid sahlan ma aha weli waa la harjadaynaa sidaa xal loogu heli lahaa arrintan barakacayaasha wallaahi nasroy waa runtaa waa arrin runtii aad u culus oo hal gabar iyo laba qof iyo ka badanba aan lagu hadlayn karin oo u baahnaan lahaa in si gruub aan isu kaashado hadda waxaa jirta rajooyin aan filayno laakiin ma garanayo siday wax noqonayaan laakiin bal rajo ceenkee ah waaye waxaa jirta in dowlad goboleedka ay isku dayaysa inay caawinaad noo fidiso balse arrintan weli waa gaabis ilaa iyo hadda waana sugaynaa weli waayo waddo kale oo noo muuqato oo taageero ah ma jirto aad ayaan kuu fahmayay nasroy run ahaantii waa inta dabartiina xaggiina waa dadaalaysaan oo waa ay muuqataa dadaal la-aan xaggiina ka timid kolley waxba uma baaqan doonaan laakiin cid kastoo aad taageero ka heshaan ama dowladda ama hay-ado gaar ah ahaadaan waxaan rajaynaynaa in kolley sida ugu dhaqsiyaha badan ay idinla soo gaari doonaan annaga bulsho ahaanna duca iyo tabarba waxaan hayno waa idinla garab taaganaha insha allah cid aan ku hadlaynayno ma jirto howshaan soomaalida horey waxay ugu mahmahday howl aadan hurayn horaa loo qabtaa waxaa jira laakiin aan ku xasuusiye nin saaxiibkee oo runtii arrimahan aad ugu farar u dhuuban isaga laftigiisa hadda ayaan raadinayaa in aan bal kuu keeno si uu inta uu kula qaban karo kulley uu kula qabto hadduu alla idmo waxaan kuu sheegayaa tahliilow in nasre la guursan doono oo ay 5 caruura dhali doonto haddaadan ku dhiiran inaad la hadasho waa lala boodi doonaa gabadhan waa runtaaniyow waa inaan geesinimo muujiyaa kow dheh oo weliba sida ugu dhaqsiyaha badan aan arrintan nasro ugu sheegtaa filsan iyo bishaaro maanta waxa aan idin casumay miyaad la yaaban tihiin aniga niyadda ayaan iskala hadlayo waxaan bays lahaa maxaa jira maanta oo ay maama marwo idiin casuuntay ma wax gaara ayaa jira maama marwoy alla waan gartay haa aan waab isku ogaydaada ini maama marwo maala yacni ninka ka weerana kolley xillig ayuutadana may deernee walay ninka weerti walyar mehe warka isku sugu doono markii jarab bacakaaru si kooyeleray anigaba markii meel layga waco yaa sidaas ayaan u fekeri lahaa waxaan isdhihi lahaa maxaa jira maanta oo lagu wacay
waa runtaa maama marwo alla maxaad wax soo aragtay waad ku mahadsantihiin imaatinkiina filsan iyo bishaaro casumaadda waa mid iska caadiya soo dhowaada mar kale waan dhownahay maama marwo waxaan doonayaa inaan idiin sheego gabadhayda nasro ayaan rabaa inaan nin u guuriyo hambaliyo wallahi aad ugu faraxnay maanta war fiican ah maqalnee waana u hambalyeynayna walaasheen nasro guurkeeda waa war khayr leh maasha allah maama marwo goranay aylan guuriyahay laakiin nasra cadday nalka isku filan bahaytay waa nasiiban weelatay nin sheega maama marwo ayn guuriyahayta nasra wiilka aan u guurinayo gabadhayda wiil fog maaha wiilkaasi waa kuma maama marwo idinku ma garanaysaan wiilkaasi balse waa wiil aan aniga eeddo u ahay waan garanay waa wax aad u wanaagsan maama marwoy waxaa soomaalidu horay u tiri waxaad taqaana guurso waxaad taqaan ha lagu dhale haa maama marwoy waa khayr iyo farxad hadda arrintaas ayaa jirta oo aan doonayay inaan idiin sheego filsan iyo bishaaro bal sidaa ula socda waad ku mahadsan tahay maama marwo sida kalsoonida leh ee aad noogu sheegtay guurka gabadheenna nasro waybana tustay geeka maama marwa meeluna kooroogna aniyo filsan waana eedan ka farxsanna casuumaad adahaninka sheegtay guurka nasra adeer warsame ka waran isaga muxuu ka leeyahay arrinkan waxaan idiin sheegayaa in warsame uu ku faraxsan yahay madax bannaanida gabadhiisa nasro kartideeda iyo aqoonteedaba waan garanay maama marwo oday warsame waxa uu ka walwalsan yahay oo uu walaac ka muujinayaa yaa mustaqbalka gabadhiisa nasro oo aanu saadaalin karin taas ayuu aad uga fakerayaa beryahanba adiga ra'yigaaga ka waran maama marwo maxay kuula muuqataa arrintan aniga odaygayga ayaan u hiilinayaa oo aan la jiraa haddii ay nasro oggolaato guurka ee balshaah aan idiin keeno hadal baaban idinku wareeriyey maynas dhabahayta maama marwo unihakiin edeygana intusku fadhowba tartiibta wax dhiba ma laha anaa idiin keenaya shaaha ee fadhiya halkiinna maamada ha kicinina ayay idinla tahaye laakiinse dhib ma laha anaaba idin keeni kara waa mahadsan tahay maama marwo waan isku leenahaye ee maxaad iiga mahad celinaysaan walle waa yaab firsaney maxaa is leedahay saaxiibay arrinkaani sidoo kuula muuqdaa ma garanayo sida xaalku uu yahay runtii firsaney ee nasro waxaa u malaynaa in xiriir kale ee leedahay balse ma garanayo halka uu gaarsiisan yahay xiriirkeeda qofka aad ka hadlayso ee ay xiriirka leeyihiin nasro waa qof ma bishaaro filsanay adiina ma dabaal inay iska dhigtoy aniyaad is ogna unagiilayska endad oo isku warhaayba enaa walijarnana kuba basanta wax sidee ah ayaan ogahay bishaaroy dee waxba ma ogiye aniga waxaa u malaynayaa in nasro ay xiriir ay leeyihiin wiilkii tahliil ahaa shuxshuxdaasaa magaalada ku jirto warkaasaan isoo gaaray adiga ma maqli miya anigu waxaan kuu sheegayaa inaanay sidaasi ii muuqan arrintanna marwo uma sheegayno haddii kale dhibaato ayaa ka imaan karta haa way timid marwo way timid waxa aan ku faraxsanahay bishaaroy in dugsigii dib loo furayo toddobaadka soo socda labadayda carruurana horay ayaan u diiwaangeliyey waalidiin badan iyo awlaadyo ha diiwaangeliyey tiidii kale wayba una helnay oo una qornay dhowr macalin iyo iskoolkan dhakan oo macallimiinta miyaa magaalooyin kale oo deriska nala ah ka imaanaya macallimiinta magaalo kale may ku sheegna macallimiinta waliba waa ahaani deegaanka isku filan maadaama macallimiinta deegaanka dhatisluku qori ee wayba fadaane awlaadayna inta si toose walninka baradan waa wax lagu farxo in macallimiinta iskuulka aanu ka helno isku filan dhexdeeda ee maalimo iskoolka dhakow horte waliba lah ku xulay ee magaalada isku filan laakiinse ilaa iyo hataa agabka una haysana waliba agab isku xadidan oo kistoo isku ahata laakiin filanyin kasii meeldeeri korna intiin walkala ku sii helaan bishaaro bal iiga waran qorsaha lagu magacaabayo maamulaha cusub ee iskuulka oo xilkaasi soo bishaaro ma qabanaysa maama marwo bishaaro ayaa qabanaysa ayaan islahaaye iyadaa qabanaysa soo maaha arrintaas waxaa laga yaabaa in mas-uuliyiinta bulshada aanay aqbalaynin in qof dumar ah ay madax ka noqoto iskuulka aabe warsame geedka liinta dhinacan ayaa liimo badan ku yaalaan ee dhinacan ka soo daadi aabbo nasroy waan arkaa in liintu dhinacaas u badan tahay wallee beerteenna muddo dheer ka hor ayaa iigu dambaysay liintani way bislaatay
inaan goor hore imaado ayay ahayd adiguna imaada xasuusi nasroy haa aabbo waa runtaa waa laga mashquulay aniga xitaa niyad ayaan ku hayay inaan imaado mar ayaan isdhahay tahliil armaad tiraahdaa ila soo gur liinta beerteena yaa way fiicnaan lahayd gabadhaydii inaad soo gurta liinta mar hore aabe dembiishii aan ku aruurinayay liinta way iga buuxsantay wax badan ayaad ka soo daadisay geedka aahey aabba waan arkaa geedkoo dhan baa wada liin ah wayna bislaata liintii waa runtaa aabbo laakiin maanta waan ka shaqaynay waana xili dambo oo qoraxdii way sii dhacaysaa waa runtaa aabbo waa runtaa gabadhayda waxaan aad ugu faraxsanahay sida aad karti ugu yeelatay oo aad uga shaqaysay dadka barakacayaasha ah xaaladooda oo ay dhibaatooyinka badan ay soo wajaheen aabe aniga waxaan ku shaqaynayay tusaalahaagiioo keliya si loo dhiso nolosha dadka deriska ah iyo si loo helo bulsho fiican maandhay waan kugu bogaadinayaa hawsha aad bulshada u qabatay aad iyo aad ayaan kugu bogaadinayaa ilaahay khayr ha ku siiyo aniga ka oday warsamo ahaan arrintaas aad iyo aad baan ugu niyadsamahay waana ku faani doonaa aabe wax kasta oo wanaag ah oo aan sameeyo waa wax adiga aan kaa bartay oo aan kaaga dayaday nasro gabadhayda khayr allah ku siiyo waxaan marna la dafiri karin isbeddelka ku yimid magaalada isku filan taas oo aan odhan karo waa mid yididiilo leh oo lagu farxo oo qof walba niyaddiisa iyo qalbigiisa wanaajinaysa haa aabbo magaalada isbeddel ayay samaysay dhanka horumarkana wax badan ayaa iska beddelay waa runtaa aabba magaaladani waxay soo martay dhibaatooyin badan mana aha wax laga sheekayn karo ma fahanta laakiin hadda waxaan isleeyahay waa laga soo bogsaday dhibaatooyinkaas weliba si tartiib ah ayaa looga soo bogsanayaa wixii horey noo soo maray dib loo fiirin maayo aahey aabe weli halkaanu joogno meel ka wanaagsan ayaan gaari karnaa dhinaca horumarka haddaan si wanaagsan u sii dadaalno waxaa maragmardoonto ah nasroy in magaalada isku filan sidii loo xoreeyey ay horumar weyn samaysay weliba si xawli ah marka dhan walba laga eego haa aabbo dadka nabad ayay u baahnaayeen haddii nabad la helayna dabcan isbeddel ayaa la filayaa bal eeg horumarka la gaaray dadkii deegaanka ka tegey ayaa dib ugu soo laabanaya magaaladoodii waxay hagaagsanayaan guryahoodii oo yara bololay marka taasaaba wax muuqda ah waxa ugu yar oo hadda soo kordhay waa run aabbo dadkii way soo laabanayaan iyagoo ku faraxsan amniga magaalada isku filan horumarka la taaban karo waxaa ka mid ah dib u dhiska iskuulka magaalada isku filan oo aad muhiim uga ah ubadkeenna iyo kuwa dhalan doona iyo da'yarta aabbo aniga aad ayaan ugu farxay hoosha dib u dhiska iskuulka magaaladeenna dadka aad ayay ugu baahnaayeen run ahaantii ma waxaan lagu farxin baa iskuulka dhismihiisa cid kasta oo reer isku filan ah ayaa ku faraxsan waana loo baahnaa allayleh weliba goor hore ayay ahayd bulshada hadday iskaashato wax badan ayay qabsan karaan waa runtaa oo waxaa horey loo yidhi gacma wada jir bay wax ku gooyaan aab oo haddaan la wada shaqayn oo aan layskaashan oo aan muruq iyo maal iyo maskax la isku darin wax hagaagayaa ma jiraan deegaankeenna cid aan ku haleynayno oo noo hagaajinaysa ma jirto waa inaan isku duubnaanaa rag iyo dumar dhallinyaro iyo waayeelba oo magaaladeenna anaka hagaajisanaa waad igu bannaan tahay aabbo waan hubaa oo waa hubaayo waa hayaa in aad gabadhaydii tahay sida aad u garanaysid xubinta hadalka iyo waxa loo baahan yahay iyo meesha la rabo in laga abbaaro danta sidaa u garanaysid ilaahay afka kuma gooyo aab gabadhaydiyey dadnimada iyo kartidu horta kuma xirna inaad gabar tahay iyo inaad wiil tahay ma fahamti waxay ku xidhan tahay abuurista ilaahay iyo guriga aad ku dhalatay iyo sida laguu soo barbaariyey bay ku xidhan tahay tayaduya wiilna kuma xirna gabarna kuma xirna waa garta aaba macaan aad ayaad u mahadsan tahay laakiin dadka qaar badanaa ayaa sidaa wax u dareemi karin nasroy dadku waa indhowgarad iyo indheergarad ma fahamti indhowgaradka warkiisa laguma jiro laakiin tusaalan ku haya gabadhaydiiyo horumarka isku filan haddaad eegto waxaa ka mid ah dhinaca ganacsiga tusaalena waxaa u ah goobta ganacsiga ee gabadha la yidhaahdo filsan waad aragtaa sida ay u guulaysatay oo u horumartay yacnii waxaan ka wadaa ganacsiga gabadhaas meel hoose buu ka soo bilowday maantana heerkaasuu marayaa waa guulaystay waa sax aabbo filsan ganacsigeedii way ku guulaysatay weliba iyadoo lagu jiro xilli cidhiiri ah ayay bilowday ganacsiga aad iyo aad waa markhaati madoonto maanta waan wada aragnaa halka uu maraya ganacsigeedu
wataas goobteedii lagu soo wada ururahayo oo lagu soo wada hiranayo waana gabar waxa sameeyey horumarka baaxaddaas leh aabe warsame waa hubaal in magaalada isku filan ay si wanaagsan isku beddeshay taasi hadal kama taagna nasro aabe macaan taas waan kugu raacsanahay waana kugu waafaqsanahay horumarka magaalada isku filan laakiin waan sii wadi doonaa dadaalka aan ku sii horumarinayno deegaankeenna iyo dadkeenna aniga waxaan kuu sheegayaa aabbo inaan ka gaabin doonin inaan sii wadaayo dadaalka lagu horumarinayo magaaladeena isku filan inta aan nool lahay waan kaa filahaya gabadhaydiyo middaas waana wax nalooga wada baahan yahay dhammaanteen rag iyo dumar dadka reer isku filan oo dhan yar iyo weyn waa laga rabaa waana hawl aanan loo kala hari doonin haddii alla idmo waxaa iga go'an hadda aabe oo aan kaa ballan qaadayaa inaan caawin doono dadka xeerada barkacyaasha intii karaankeyga ah waayo waa kuwa nooga baahan inaan garab istaagno oo aan wax u qabanno waa go'aan wanaagsan waana soo dhowaynayaa gabadhaydii waana kugu dhiirigelinayaa anigu arrintaas aabe waxaan rajaynayaa inaan ku guulaysto inaan dadkaas barkacyaasha ah garab istaago oo aan u dadaalo mar walba maasha allah aad iyo aad ayaad u dadaalaysaa ilaahay ha kula jiro waxaan ku weydiin lahaa oo kale aabe maxaa kuu qorshaysan oo kale adiga ka nasra ahaan aabe waxaa ii qorshaysan waxyaabo badan laakiin hal mar lama wada dhammayn karo qorshahaasi waxayna u baahan yihiin in mid mid loo fuliyo waxaan rabaa aabba inaad ii sheegto sida aad u qorshaynayso horumarinta noloshaada adiga ka nasra ahaan yaa aniga waa qasab inaan qorsho sameeyo aabbo qorsho la'aan howl lama qaban karo nasro aabba wakhtigu ma aha mid ku sugaya taas waa inaad ogaataa oo aad si dhaqso ah uga fakartaa mustaqbalkaaga kuu gaarka waxaana la yidhi wakhtigu waa seef oo kale seeftana haddaada wax ku gooyn adiga ku gooynaysaa wakhtigu ku sugi maayo nasro aahay haa aabbo waa in aad loo dadaalo si horumar loo sameeyo waxaa la gaarayaa markaas meesha aad hiigsanayso waa hubaal taasi haddii aan dadaalno wax kasta waan gaari karnaa taasi waa mid la huba aabbo aahay waa runta barantada runtii maanta cambaroy aad bay u qabowdahay bal shaahi ii keen fadlan waan soo daalay maanta oo idin magaalada ayaa maraya aniga asxaabtayda waayahay colaadow waan kuu keenayaa aniga qudhayda magaalada ayaan ka imid oo wax ayaan ka soo iibsanaya maanta dhan ayaan socday haye bal warka isii islaamihii dumarka ah iyo sheekooyinkoodii iyo xaafadaha iyo xanti iyo waxaa yidhi magaalada xan iyo sheekaa lagu joogaahay bal iga dabagaarsiya waxaan la yaabay sida bulshada reer isku filan ay ugu heelan yihiin inay caawiyaan dadkan barakacayaasha ah dadkii oo waxaan arkayaa giddigood u tartamaya caawinaadda dadkan barakacayaasha ah la yaab ayay igu tahay colaad middaasi sideedaba cambaroy dadkan reer isku filan markii aad runtii u kuur gasho oo aad fiifiiriso waad ku wareeraysaa walle waxaan ka walwalsanahay waxa laga yeeli doono meelaha ay degan yihiin haddeer barakacayaasha maxaad ka walwalaysaa cambaroy halkuu u badan yahay balwalwalkaaga meelaha hadda ay degan yihiin barakacayaasha sida iskuulka iyo masaajidka iyo meelo kaleoo ka mid ah uma malaynayo inay si sahlan uga guurayaan ama looga rari doono waan kula qabaa runtii maxaa yeelay muddo ayay ku noolaayeen goobahan hadda furitaankii iskuulka dibidhac ayaa ku imaanaya oo ma suuroobayso in hadda la furo sababtoo ah barakacayaashii ayaa dhex buuxaan oo meel laga maro maba laha colaadow sidaa oo kale anna waxaan qabaa welwel la xiriira inay si dhaqsiya kaga guuraan masaajidkii loogu talagalay in lagu cibaadaysto maxaa yeelay hadda uma eka dad maanta iyo berri iyo saa dambe iyo mid la mid ah inay ka guuraan goobahaas ay u sahlan tahay maxaa yeelay waa ay la qabsadeen inay deganaadaan halkaasi mana filayo runtii masaajidkana ma sidaas ayay u joogaan dadkan barakacayaasha ah waxaan islahaa dhinaca iyo masaajidka way ku yar yihiin isma lahayn way ku badan yihiine markaa masaajidka kasho meel aad lug dhigto amaba aad ku dukato walle aadan ka helayn oo waa ay wada buuxaan dadkan colaadow awal waynaga qarsoonaayeen ma istiri oo daadadkii ku soo fatahmay ayaa bannaanka keenay oo dhibaatadii ay bulshada ku hayeen ayaa soo kordhaysaba cambaroy waa ila yaabayseen adiga iyo dad fara badan markii aan horey uga digayey in dadkan barakacayaasha aad dib loogu celiyo meelihii ay ka yimaadeen amaba deegaano kale loo farsameeyo dad badan baa ila yaabayo laakiin waa kan wixii aan ka digaya ama aan ka walwalsanaa dhibka bulshadeenna ay ku hayaan odagayga hadalkiisa haddii la qaadan lahaa waxaanoo dhan ma dhici lahayn alla reer isku filan madax adkaa may qaataan talada odagayga colaad hadda ayay ka
shalay doonaan midaas colaadow waa dhibaato runtii culeyskeeda leh waxaana laga yaabaa in dhanka fursada ganacsi ayaa ku dhex jira waa yaab iyo ama kaag colaadow niyo galabta dhaxan badna amaro bal shaahi ma ii keentay kember shaahi waxaa goorra u imaan doona bal ninkii saaxiibka ayaan ballansanaa yunis waan idin salaamay colaad iyo cambaro waa lagaa qaaday yunis soo dhowow halkaan soo fadhiiso bal ii waran yunis xaaladdu waa sidee waa la fiican yahay colaadow bal iiga waran daadadkii daadadka waa sidii aad ku ogeed wax isbeddel ah ma jiraan waxaan kaa rabaa bal yunisow wax fikir ah ma noo haysaa oo qof kasta oo inaga naga mid ah uu faa'iido ka heli karo adiga oo howlaha si wanaagsan ugu fara dhuuban oo u yaqaana colaadow waxaan ku xasuusinayaa in oday suldaan uu mar hore meel iska dhagi taladeennii oo ismoogeysiyey si aan qof waxba fahmaynin oo kale yunisow hadda la joogo saacaddan aan kula hadlayo suldaan iyo asxaabtiisaba waxaan kuu sheegayaa inaysan dooq lahayn oo aysan waxba diidi karin uu xaalka ku adag yahay marka laga eego marxaladaha adag ee ay ku jiraan marka bal adiga hadda qorshe unkeen waxaan rajaynayaa in talo wanaagsan aan keenno bal wakhti isii saaxiibow colaadow waan fikiri doonaa insha allah niyo wakhti ayaa nagu socda waana in xilliga la jooga aan ka faa'iidaysanaa oo dib u dhac kale si uusan noogu imaanin marka bal qorshe deg dega keen hadduu alla idmo xaggeenana bal waa dadaalinaa laakiin muhiimadda waa adiga ayaa lagaa sugayaa qorshe saaxiib anigaba faa'iida doon ayaan ahay waan ogahay fursadda inaad ka faa'iidaysadno ayaad rabtaa laakiin aan ka fikirno oo si macquulgal aan ugu fikirno sidii aan horumar aan ugu tilaabsan lahayn waayahay saaxiib weligaa fursadda waa laga faa'iidaystaa oo lagama wahsado horay ayaana loo galaa waana marla arag marka mar kasta kuma soo marayso fursadda marka waxaa lagaga baahan yahay xilligii fursadda ay jirta in laga faa'iidaysto yoonisow indhahaaga fur noogana faa'iidaya fursaddaas insha allah yoonisow ka waran haddaan ku baro nasro oo ah gabar aad iyo aad iskugu dabaridda gargaarka iyo kaalmada sidee bay kula tahay adiga bal ka waran arrintan